بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعند ما باقيارتها ودا نغلا xidhiidhay halkani waa Star TV xaruntiisa guud ku leeyahay magaalada Hargeysa daawadayaal waxaan soo gaarnaa intaan hawadeedii soo marin jirnay barnaamijkeena xiisaha iyo xulashada wargeysida barnaamijka ayaa alaab waxaynu ku soo qaadanaa warbixinaadka xiisaha badan la qoraa wargeysida ka soo baxa dalka iyo waliba caalamka intiisa kale barnaamijka alaab waxay la socodsiisa sidoo kale isku soo dubarida anigoo Nishaad Farxaan Caliya aan soo qabta daawadayaal warbixinta markani wareyso barnaamijkeena madaxweynaha dalka Masar oo noqday hogaamiyaha ugu awoodda badan ee Afrika warbixintani waxa wax ka qoray wargeyska Warsugan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa jariirada Forbes oo dhawaan soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahayd ee qiimeynta shakhsiyaadka adduunka ugu awoodda badan oo kaalinta koowaad siisay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sidoo kalena warbixinteeda ku tilmaantay in madaxweynaha Masar Master Abdallah Al-Sisi uu yahay hogaamiyaha ugu awoodda badan qaaradda Afrika liiska loogu taxay 740 qof oo iyagu ah kuwa ugu awoodda badan adduunka waxa ku jira laba hogaamiye oo kamid ah Afrika waa madaxweynaha Masar oo isagu kaga jira kaalinta 44aad kaasi oo ka dhigan tahay inuu yahay ninka ugu awoodda badan ee Afrika marka loo eego waxaana soo raaca ganacsade isagu u dhashay dalka Nigeria oo ah qofka isagu ugu taajirsan Afrika kaasi oo kaalinta soo galay isagu 68aad kaga jira dadka adduunka ugu awoodda badan leh waxayna ka dhigan tahay in isagu yahay qofka labaad ee Afrika ugu awoodda badan leh marka laga imaado madaxweynaha Masar Abdallah oo isagu ah jir waxa uu qasab ku qabsaday Masar oo isagu ah dalka ugu dadka badan marka loo eego Carabta waxa uu hore u ahaan jiray wasiirka difaaca iyo taliyaha ciidanka militariga waxa uu dalka qabsaday 2014 la doortay markii uu doorasho dhacday uu ku guuleystay 790 cod oo dadka ku nool dalkaasi hadaba ninkan kale oo isagu ah ganacsade ayaa waxa uu noqday ninka ugu taajirsan Afrika waa asaasa iyo gudoomiyaha shirkad soo saarta sibirka shirkadani ayaa ah shirkad ugu ballaaran shirkadaha Afrika ku yaala iyagu soo saara sibirka waa sida uu sheegay ninkaniye hadii aan daawadayaal warbixintaasi inta kaga nimaadno aan soo qabto warbixinta markan aan idin hayo dalka Kongana heshiis laga gaaray mustaqbalka madaxtinimo ee Kabila warbixintani waxa ka faaloonaya wargeyska Warsugan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa hogaamiyaasha mucaaradka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegay inay heshiis ku saabsan Kabila loo maarin lahaa xilligii kala guurka dalkaasi ay la galeen xisbiga talada dalka haya balse mas'uuliyiinta kiniisadaha oo dhexdhexaadinaya labada dhinac ayaa sheegay inay weli jiraan arrimo aan heshiis laga gaarin balse ay suuragal tahay in maanta la kala saxeexdo heshiiskaasi waxa uu dhigayaa in madaxweyne Kabila uu sii hayo xilka ilaa iyo dhammaad sanadka 2017 inkastoo waqtigaasi uu dhamaaday waxa la magacaabi doonaa ra'iisul wasaare ka soo jeeda mucaarid dhanka dawladda Kabila waxa uu xukuumadda qabsaday 2 jeer inkastoo uu dastuurka dalkaasi u ogolaaday laakiin doorashadii la filayay inay wadankaasi ka dhacdo ayaa la baajiyay waxaana ka dhashay qalalaaso kadib markii Kabila uu diiday inuu xilka ka dego dawladdu weli kama aysan hadlin heshiiska ay mucaaridku shaaciyeen hadii aan daawadayaal warbixintaasi inta kaga nimaadno dalka Dubai oo la doonayay laga hirgeliyo tareenka aadka u dhaqsaha badan leh warbixintani waxa ka faaloonaya wargeyska Sahan shirkadda Hyperloop oo doonaysa inay samayso tareenka dhaqsaha badan ayaa ku dhawaaqday in tareenadaasi ay ugu horeyn doonaan jidka isku xidha Abu Dhabi iyo Dubai iyadoo fiilyo ay soo bandhigtay ay ku sheegtay in safarka uu qaadan doono uu noqonayo 12 daqiiqo laba magaalo inta la iskaga kala gooshayo oo ah Abu Dhabi iyo Dubai tiknoolajiyada ayaa weli la tijaabinaya marka lama hayo faahfaahin dheeraad marka hore waxa la darsi doonaa in la dhiso jid isku xidha laba magaalo waqtigaasi loo safri karo oo labada magaalo ugu horeynaya ay noqonayaan Dubai iyo Abu Dhabi iyadoo sida la sheegay labada magaalo imika marka jidka caadiga loo maro ay qaadato masaafo dhan 1 saac amaba wax ka badan sidoo kalena waxa ay ku talinayaan in habkan uu yareynayo waqtiga la isaga kala soconayo laba magaalo sida Dubai iyo Riyadh oo noqonaya 48 daqiiqo marka la sameeyo habkani ayay yiraahdeen sida Dubai iyo Doha oo iyagana loo kala socon doono 23 daqiiqo ayay sheegeen hadii aan daawadayaal warbixintaasi inta kaga nimaadno aan soo qabta markana warbixintan gacanta ku hayo dalka Ruushka oo la doonayay in laga hirgeliyo wadooyinkooda qaar ku shaqeeya warbixintani waxa ka faaloonaya wargeyska Dawan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa
wadooyinka dalkaasi Ruushka ayaa loo diyaarinayaa sidii looga dhigi lahaa caag iyadoo meesha laga saari doono wadooyinkii sibirka iyo waxyaalaha daamurka laga sameeyo waxaana wadooyinkaasi qaybahoodii ugu horeeyay laga sameyn doonaa magaalada caasimadda ee Moscow iyadoo lagu xogsiin doono magaalooyinka kale waxa ay tani noqon doontaa tijaabo waxaana laga bilaabi doonaa xaafado kamida Moscow madaxa xarunta cilmi baarista iyo tijaabooyinka ee dalkaasi Ruushka oo la hadlaya wargeyska Russian Today oo uu ka soo xigtay warbixintani wargeyska Dawan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa ayaa sheegay in tani ka mid noqon doonto tijaabo ay iyagu sameeyeen aan soo qabta daawadayaal markana warbixin kale oo ka faaloonaysa jimicsiga dhanka orodka oo la sheegay inay faa'iido badan u leedahay maskaxda warbixintani mar kale waxa ka faaloonaya wargeyska Dawan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa jimicsiga orodka oo qofku sameeyo ayaa la ogaaday inay faa'iido badan u leedahay maskaxda qofka iyadoo ka caawinaysa waxyaalo badan oo qofku si fudud u xalin karo marka uu yahay qof jimicsanaya ama sameynaya jimicsi daraasad ay si wada jir u sameeyeen khubaro ka socotay dalkaasi Mareykanka iyo Ingiriiska oo lagu daabacay wargeyska Human Neuroscience oo wargeyska Dawan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa uu ka soo xigtay warbixintan ayaa lagu sheegay in orodku qofka ordaa isagoo jimicsanaya ay maskaxda qofka u leedahay faa'iido badan faa'iidooyinka ay khubradani taxeen ayaa waxa kamid ah ama qayb ka ah go'aan gaadhista qofka oo go'aan qaata qofka oo noqdo mid digtoon marka uu waxyaalo badan xalinayo iyo arrimo badan oo dhanka fikirka khubradani oo iyagu u badnaa saynisyahano khubradan ayaa sheegay inay sameeyeen tijaabo ay ku sameeyeen dad mutadawiciin ah oo iyagu kala qayb qaadanayay daraasadani oo ay ku ogaadeen dadkii iyagu orodka ka qayb qaatay jimicsiga inay noqdeen qaar aad u maskax badan isla markaasina wax badan ka fikira kuwii kale iyagu aan ka qayb qaadanina ay noqdeen qaar aan iyagu ka maskax badnayn kuwii hore oo ka liita akhyaarta hawada nagala xidhiidhay wali waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeena xiisaha iyo xulashada wargeysada oo idinkaga imanaya Star TV xaruntiisa guud ku leeyahay magaalada Hargeysa aan soo qabto markana warbixinta aan idin hayo dalka Nigeria oo beenisay in dalkeeda lagu qabtay bariis ka samaysan caag warbixintani waxa ka faaloonaya wargeyska war sugan ka soo baxa magaalada Hargeysa dawladda Nigeria ayaa beenisay wararka sheegaya in bariis caag ka samaysan lagu iibiyo dalkaasi laanta qaabilsan cashuuraadka badeecooyinka ayaa hore u sheegtay inay gacanta ku dhigtay 2.5 tan oo bariis caag ah oo la tuhunsan yahay in laga keenay Shiina wasiirka caafimaadka Nigeria ayaa bartiisa Twitter ka soo dhigay in baaritaano lagu sameeyay kadib la ogaaday in bariiskaasi uu yahay mid caadi ah oo aan ka samaysnayn caag aan soo qabta daawadayaal markana warbixin kale oo ka faaloonaya wargeyska Sahan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa doon rarneed ganacsato Soomaaliyeed oo la sheegay inay ku degtay xeebaha magaalada Boosaaso wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegaya in xeebaha magaaladaasi ay ku degtay doon sidii alaabo oo u rarneed ganacsato Soomaaliyeed wararku ku saabsan doontan ayaa sheegaya inay ka timid dalka waxaana wararku ay sheegayaan inay qalibintay markii ay u jirtay dekada wax ka yar 14 mililitr kilomeetar ayaa la sheegaya inay badbaadiyeen 7 qof oo kamid ah dadkii iyagu saarnaa doonida balse haatan ilaa iyo hadda wali lahayn 5 qof oo kale iyagu saarnaa doonta waxaana la socday goob xogogaalua ciidamada badda Puntland oo iyagu arintani si weyn uga hawlgalay ilaa iyo haddana ku daba jira ugu dambeyntiina saraakiisha dawladda galbeedka Puntland ayaa sheegay in dabaylo xoogan oo dhacay ay sabab u noqotay inay doontu qalibanto soo qabta daawadayaal markana warbixin kale oo ka sheekeynaysa dhanka caafimaadka cananiska oo la ogaaday inuu daawo u yahay beerka warbixintani waxa ka faaloonaya wargeyska Dawan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa cilmi baarayaal Mareykan ayaa soo bandhigay sida uu geedka cananaasku uu waxtar badan ugu leeyahay halbowlayaasha jirka sida warbixintani lagu cadeeyay cananaaska ayaa waxtar badan u leh beerka iyo beeryarada oo uu ka ilaaliyo bararka iyo adkaasha warbixintani ayaa cadeysay in dawladda Mareykanku ay xoojinayso beeritaanka geedka cananis waxa kale oo cananaaska ku jira vitamin B, vitamin C, vitamin A iyo macdano kale oo badan daraasad la sameeyay oo lagu ogaaday xayawaanka aygu inuu kala aqoonsan karo wajiyada dadka faraxsan iyo waliba kuwa murugsan warbixintan la yaabka badan leh waxa wax ka qoray wargeyska war sugan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa
xayawaankayga oo rabaayad ahaan wanaagsan inta badan wadamada reer galbeedkuna ay siyaabo kala duwan uga faa'iideystaan ayaa khubaro ka tirsan jaamacadda caafimaadka xayawaanka ayaa sheegay inay kala saari karaan isla markaasina kala garan karaan muuqaalada wajiyada faraxsan iyo waliba kuwa cadhaysan ee bini'aadanka. khubradani waxa ay sheegeen in ay leeyihiin awood cajiib ah oo ay ku kala saari karaan caadifada dadka ka muuqata sida ay cilmi baadhistani laga diyaariyay iftiiminta xayawaanaadka, taasi oo cadaysay ama bacdeen noqon karta in xayawaanada qaar si fudud ku kala ogaan karaan qofku markuu ku sugan yahay xaalad faraxsan iyo marka uu yahay qof aad u cadhaysan. dabcan daawadayaal markana aan soo qabto warbixinta aan gacanteedii ku hayo dalka Jarmalka oo wali ku raad jira nin loo tuhunsan yahay inuu ka dambeeyay weerarkii Berlin. warbixintani waxa wax ka qoray wargeyska Sahan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa. booliska Jarmalka ayaa raadinaya nin reer Tunisia oo lagu magacaabo Anis oo lagu tuhunsan yahay weerarkii Berlin sida ay sheegeen warbaahinta ka soo baxda dalkaasi. sida ay ku qoreen warbaahinta oo dhan, booliska dalka ayaa maalmihii u dambeeyay ku jira raadinta ninkaasi balse aan wali ku guuleysan. ninkan ayaa la sheegay inuu dhashay sanadii 1992. weerarkan ayaa la sheegay in qofkii weerarka lagu tuhunsan yahay laga yaabo inuu dhaawacmay markii uu la dagaalamayay darawalka baabuurka wada sida ay sheegeen dadka iyagu ku jira baadhista falkani. ninkani laga sheekisan yahay oo daadiisu u dhaxayso 22 ilaa 23 jir ayaa lagu yaqaanaa 3 magac oo kala duwan. 12 qof ayaa dhintay, 49 kalena waa ay dhaawacmeen. aan soo qabto daawadayaal markana warbixin kale oo dad badan aad u la yaab gelisay isla markaasina fajac gelisay. mulkiilayaasha shirkadda Pakistan International Airlines oo diyaaradda hoosteeda intaanay rakaab ku fuulin ama baanay kicin ku horgowracay neef. warbixintani waxa wax ka qoray mar kale wargeyska Dawan. dhacdo nooceed cusub yahay ayay samaysay shirkadda diyuuradaha ee Pakistan International Airlines kadib markii ay albaabka diyaaradda horteeda intaanay rakaabku korin ay ku gowracday neefriya. waxaana arintani ay ka dambeysay kadib markii hawada oo xun awgeed ay diyaarad hore u lahaayeen ay dhacday isla markaasina ay ku dhinteen 47 qof oo saarnaa diyaaraddaasi. shirkaddan ayaa la sheegay inay sababta sidan ay u samaysay ay tahay iyadoo rabtay in qulubta rakaabka oo waxoogaa naxdini ka muuqatay ay ka saarto isla markaasina ay u in alla bari loo sameeyay. shirkadda ay cabsida ka joojinaysa rakaabka ayaa arrinkani u sameysay si ay uga saarto cabsida badan ee ka muuqata rakaabkeeda. laakiin shirkadda ayaa aad looga dhaleeceeyay arrinkani iyadoo dad badani ay sheegeen inay tahay arrin khuraafaada oo ay dad badani ku mashquulsan yihiin. aan soo qabto daawadayaal markana diyaarad laga afduubay dalka Liibiya oo laga dejiyay xeebta Malta. warbixintani waxa ka faaloonaya wargeyska Warsugan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa. diyaarad rakaab oo laga leeyahay dalkaasi Liibiya ma ay saarnaayeen 118 qof ayaa la afduubay waxaana lagu khasbay inay ka degto jasiiradda Malta sida ay xaqiijiyeen shirkadda diyaaradaha Afriqiya. mas'uuliyiinta dalka Liibiya ayaa xaqiijisay in la afduubay diyaaraddaasi iyadoo ku guda jirta duulimaadka maxalliga. waxa hadda ku hareeraysan ciidamada waxa sidoo kale garoonka ku sugan oo heegan ku jira shaqaalaha gurmadka degdega. waxa ay u muuqataa inaan wax xiriir la samaynin dadkan iyagoo afduubay diyaaraddaasi la sheegay inay sitaan bambooyinka gacanta ee la tuuro. garoonka Malta ayaa haatan qayb ka mid ah la xiray duulimaadkeedina loo wareegay. dhammaan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay intaasi waxa ku barnaamijkeeni xiisaha iyo xulashada wargeysada. barnaamijka oo idinkaga yeemanayay Star TV xaruntiisa guud ku leeyahay magaalada Hargeysa. barnaamijka alaab waxa idin la socodsiisay sidoo kale isku soo dubarida anigoo Nashaad Farxaan Caliya. dhanka kamarada muuqaalkan iyo aadka quruxda badan leh waxa suura geliyay Cabdiraxmaan Daacad. wadamaantii anagoo isku duuban intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa is arag maqal dambe oo xiiso leh.